Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga. Waa maxay sidratul muntaha? Yaase ku nool? Waxaan in badan maqalnaa sidratul muntaha. Marar badan ayaana soo dulmarnay inagoon isdul taagin oo aanan si sax ah u fahmin waxa uu yahay sidratul muntaha. Waxaana lagu sheegay Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa. Wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala: walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidratil muntaha. Wuxuu Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam mar kale Jibriil isagoo siduu Alle subxaanahu wa tacaala ku abuuray ku arkay sidratul muntaha agtiisa. Haddaba waa maxay sidratul muntaha? Xaguuse ku yaala? Yaase ku nool? Sifadiisuna waa sidee? Sidee buu ku sifeeyey Nabigu sallallahu calayhi wasallam? Dhammayso muuqaalkan si aad u ogaato jawaabaha dhammaan su'aalahaas iyo weliba kuwo kaloo badan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waa maxay sidratul muntaha? Ugu horreyn aan u kala qaadno sidra iyo muntaha. Sidraha waxaa la yiraahdaa geed ka baxa jasiiratul carab. Waxaa kaloo loo yaqaanaa shajaratun naqib. Waa geed aad u wanaagsan oo mirihiisana la cuno, caleemihiisana lagu intifaacsado, wuxuuna leeyahay caraf aad u wanaagsan. Haddaba aan u imaanno ereyga muntaha. Waa erey carabi ah. Wuxuu ka yimid intaha oo micnihiisu yahay dhammaad. Sidraha aan soo sheegnay iyo sidratul muntaha waxay wadaagaan oo keliya magaca iyo qaar ka mid ah sifooyinka. Haddaba sidratul muntaha waa geed mirihiisu ay aad u wanaagsan yihiin, caleemihiisuna waa kuwo la intifaacsado. Waana geedkii habeenkii Nabiga sallallahu calayhi wasallam la dheelminayay. Agtiisa uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam ku arkay malakul Jibriil calayhi salaam, isagoo dhammaystiran oo siduu Alle subxaanahu wa tacaala ku abuuray ah. Sidratul muntaha waa geed aad u weyn. Asalkiisa ama xididkiisa wuxuu ku yaalaa samada 6. Dhererkiisuna wuxuu gaarayaa ilaa samada 7. Intaas keliya maahee, wuxuu dhererkiisu sii gaarayaa ilaa intuu Alle doono subxaanahu wa tacaala. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku arkay samada 7, wuxuuna ka mid ahaa mucjizooyinkii al-Israa wal-Micraaj. Habeenkii la dheelmiyey Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo la geeyey samada, ayuu wuxuu soo arkay waxyaabo badan oo aad u layaab badan. Waxaana ka mid ahaa geedkan aadka u weyn oo lagu magacaabo sidratul muntaha, kaasoo asalkiisu ama salkiisu uu ku yaallo samada 6, wuxuuna dhererkiisu gaarayaa ilaa samada 7, kadibna ilaa intuu Alle doono subxaanahu wa tacaala. Wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku arkay samada 7. Wuxuu sidratul muntaha xusidiisa iyo sifayntiisa ku soo arooray dhowr xadiis oo Nabiga sallallahu calayhi wasallam ay ka wariyeen Bukhaari iyo Muslim iyo keyrkoodaba. Xadiisyadaas dhexdooda ayuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam inoogu sifeeyey sidratul muntaha. Xadiiska ugu horreeya waa xadiiskii dheeraa ee laga wariyey Anas bin Maalik radiyallahu canh ee ka waramayay al-Israa wal-Micraaj. Waxaa xadiiskan ku dhex jirtay in Nabigu sallallahu calayhi wasallam uu yidhi: thumma caraja ila as-samaa'i as-saabica fastaftaxa Jibriil faqiila man haadha? qaala Jibriil. qiila waman macak?
قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxaan kornay samadii 7. markaas buu jibriil calayhi salaam gargaraacay. markaas baa lagu yidhi, waa qof ma? wuxuu yidhi, waa jibriil. waxaa lagu yidhi, yaa kula socda? wuxuu yidhi, waxaa ila socda muxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaa lagu yidhi, miyaa la soo diray? wuxuu yidhi, haa, waa la soo diray. markaas baa la inaga furay. markaas baan waxaan arkay ibraahiim calayhi salaam isagoo dhabarkiisu ugu tiirsan yahay baytalmacmuurka. kadibna waxaan arkay in baytalmacmuur maalin walba ay soo galayaan 70,000 oo malag, oo kuwii margalayna aysan dib ugu soo laabanayn. kadibna waxaa la ila aaday sidratulmuntaha xaggiisa. markaas baan arkay isagoo caleemihiisu ay u eg yihiin dhegaha maroodiyaasha oo kale, wuxuuna leeyahay miro aad u waaweyn. wuxuu yidhi, markii ilaahay amarkiisa ay dabooleen wixii daboolay, waa uu isbeddelay. ma jirto cid ka mid ah khalqiga alle subxaanahu wa tacaala oo ka sheekayn karta wanaaggiisa awgii. can maalik binu sacsacata alansaariy radia allahu canh can الnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal: waruficat lii sidratu lmuntaha faإidaa nabiquha kaأnnahu qilaalu hajar, وورقها كأنه آذان الفيول. في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. wuxuu saxaabigan oo lagu magacaabo maalik ibnu sacsacata alansaariy allaha ka raali noqday nabiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey in uu yidhi, waxaa la itusiyey sidratulmuntaha. markaas baan arkay isagoo leh miro waaweyn oo aad u tiro badan. caleemihiisana waxaa la moodaa maroodiyaasha dhegahooda oo kale. waxaa geedkan salkiisa ka soo baxayay 4 webi, 2 webi oo qarsan iyo 2 kale oo muuqda. markaas baan jibriil weydiiyo wuxuu yidhi, 2da qarsan waxay ku jiraan jannada, 2da muuqatana waa webiga niil iyo webiga furaad. geedkani waa geed aad u qurux badan, ilaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka yidhi, ma jiro axad ka sheekayn kara wanaaggiisa awgii. caleemihiisuna waxay la eg yihiin dhegaha maroodiyaasha oo kale. midhihiisuna waa kuwo aad u waaweyn. waxaana salkiisa ka soo baxa webiyaal waaweyn oo ay aad u macaan yihiin dhadhankooda. tirabadnida caleemihiisa iyo laamihiisa awgii, qofka raakibka ah ee degdegaya wuxuu hooskiisa ku soconayaa 100 sano, isagoon weliba ka gudbaynin. waxaa hareerihiisa ku wareegsan oo daboolaya firaashyo ka samaysan dahabka iyo iftiin aad u weyn oo quruxdiisa ugu siyaadinaya qurux kale. sidoo kale waxaa halkaas ku sugan malaa'ig alle u tasbiixsanaysa subxaanahu wa tacaala. can cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal: lamaa usriya birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam untuhiya bihi ilaa sidrati lmuntaha
وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من السماء فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. waxaa ibnu mascuud allaha ka raali noqday laga wariyey in uu yidhi, markii rasuulka sallallahu calayhi wasallam la dheelmiyey waxaa la geeyey sidratulmuntaha, kaasoo ku yaala samada 6aad. waxaa halkaas ku ekaada wixii dhulka ka yimaada oo lagala wareega, sidoo kale waxaa halkaas ku ekaada wixii ka soo dega samada oo lagala wareega. wuxuu yidhi: id yaqsha sidrata maa yaqsha. wuxuu yidhi waxa daboolaya waa firaash ka samaysan dahab. haddaan u imaanno sababta loogu magacaabay magacan, waxaa xadiiska ibnu mascuud oo ku yaala saxiixulmuslimka dhexdiisa ku sugan, waxaa sidratulmuntaha ku dhammaada wixii hoos ama dhulka laga keeno, halkaas ayaana loogala wareegaa. sidoo kale waxaa halkaas ku dhammaada wixii kor ama samada ka yimaada, halkaas ayaana loogala wareegaa. sidoo kale imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa sidratulmuntaha loogu bixiyey maxaa yeelay waxaa halkaas ku dhammaada malaa'igta aqoontooda, mana jiro axad halkaas ka gudbaya markii laga reebo rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.